Okay, وين سلام مركل كوسر هذا الشانل كان عادي أنا سبسكرايب كريم فضلا نسكت إنا سبسكرايب كريسي سي فيديو ذا كله وركتد ما أنت وحويان فيديو كلا كوحيجي فيديو جهرة بارت 2 ساينو أينو كهذنا يوز إكزام يلا ده امتحان كان يوز إكزام أوكي وحويان information keys كل إيران معي سو كوبان حويان يوز إكزام كامتحان سيدا يا سات كو كلا international ما أدون كدن كده حياة معها يوز إكزام وحويان تركيا اللي leeyahay so waxaa YOS exam waxay ku kala duwan yihiin saadka waxa weeyaan YOS exam iyo SAT exam waxay ku kala duwan yihiin saadka one site baa laga apply karaya ama hal website baa laga dhex apply karaya waxaa la dhahaa halka website college for information dheeraad haddii aad uga baahan tahay video hore fadlan fiiri laakiin YOS examka waxa weeyaan waxaa laga apply karaya min jaamacad yacni meel si guud ahaan looga wada apply karinayo ma jirto taas waxay ku tusinaysaa inuusan imtixaankan international ahayn aan saddex qodob kugu soo koobo imtixaankan saddex luqadood buu ka kooban yahay Turki Ingiriisi iyo Carabi imtixaankan waxa weeyaan luqad walba waa lagu geli karaa saddexda oo kamid ah midaad kulba ku fiican tahay aad ku galaysaa number 2 imtixaanku wuxuu ka kooban yahay math and IQ يعني math waxa weeyaan waa su'aalihi inta badan waxay u badan yihiin quadratic linear equation or not equation math samaha waa equation like you waa equation han su'aal han baa lagu weydiinaa linear equation qayb marka part equation ba word problem oo kala saas oo kala ayaa lagu weydiinaa inta badan and some statistics 1 statistics 2 if you remember probability and some kind of waxaas wax la xiriira trigonometric waad kula kulmi kartaa inta badan waxaas u yar badbadan yihiin ma jirto inta badan ma jiro something like wax ka baxsan intaas like inta badan logarithm laguma soo daro kuma badna laakiin waa exponential iyo quadratic kuwaas bay aad equationadaas u badan yihiin inta badan qaybta kale IQ wuxuu ka kooban yahay su'aalo maskax iyo waxa la xiriirta marka su'aalo adi af Soomaali ma garanayo wax lagu dhahayo su'aalo la isku xirxiro oo kale waxaas oo kale ka kooban tahay marka waa English somehow marka su'aalo noocaas weeyaan su'aalo somehow iyagana logic kala loo xalinayo weeyaan marka waxa weeyaan qaybta IQ insha Allah waxa weeyaan iyada Ingiriisi waxaas ma ahan IQ Ingiriiski su'aalihi grammar iyo waxaas kuma jiro meeshan IQ only Ingiriis ma ahan marka imtixaankan dhamma totally maths ka Ingiriis ay ku kooban yahay marka insha Allah waxa weeyaan information ka kooban imtixaankan jaamacaduhu jaamacad walba midkeeda ay u bixisaan tusaale yar oo kooban oo videoga hore ku sheegay waxa weeyaan imtixaankan haddii aad damacdo inaad maanta ka gasho jaamacad waxaa laga yaabaa oo jaamacad kale rabto inaad ku apply garayso in lagu dhaho jaamacadaas aad ku apply garayso inay ku dhahdo laba mid inay ku dhahdo kuma aqbalayno ama inay ku dhahdo kaanaga gal because waxaad halkaa ka garanaysaa jaamacad walba inay imtixaankeeda leedahay marka waxaa yaabaa tusaale ahaan haddii jaamacad Ankara University la dhaha ay jirto jaamacad kale Istanbul University la dhahana ay jirto waa tusaale Ankara University waxay dhahaysaa Ankara University YOS exam kan kale waxay dhahaysaa Istanbul University YOS exam laakiin saadka waxaas ma lahan yani saadku waa college board yani iyada waa laga yaabaa saadku loogu kala baxo SAT 2 and SAT with ESA SAT lagu dhaho laakiin kan waxa weeyaan waa kala farqa halkaas aad imtixaanka dhan waxa jaamacad walba ku apply garan kartaa kan laakiin YOSku waxaad ku apply garanaysaa jaamacad walba keeda laga yaabaa inay dhahdo amaba ay dhacdaan anagu YOS xataa ma aqbalayno imtixaanada kale international ay aqbalayno marka ardayda khaasatan wadamada Yurub wadamada Turkiga u dhow wadamada Turkiga ay relationka wanaagsan ay leeyihiin oo kale waa laga yaabaa imtixaanka wax u qabto jaamacad ahaan imtixaankan scorekiisu waa 100 mar walba 100 baa laga qabtaa imtixaanada kale saadka oo kale la mid maaha tusaale ahaan saadka oo kale 1600 baa laga qabtaa saadka mathka Ingiriiska ka kooban 800 oo maths 800 oo English laakiin kan uu ka duwan yahay mar walba 100 yani marka normally waxa weeyaan YOSku ka duwan yahay imtixaanada kale marka halkan waxaan kugu sheegayaa application waxaan ka wadaa software kan website kan uu ka caawinaya inaad apply garayso YOSka laakiin aad hal meel ka apply garayso ayuu ka caawinaya boqolkiiba boqol wax shuura maahan because waxa weeyaan waxa laga yaabaa inuu ku dhaw 40 jaamacadood inay ku heshiiso oo kale 30 jaamacadood dhowr jaamacadood baa ku heshiinaysa because haddii ilmo uu dhaho waxaan weeyaan ani jaamacad walba inaan YOSkeeda apply gareeyo
Turkiga jaamacadaha ku dhan oo dhan inuu apply gareeyo way ku adkaani kartaa inuu jaamacad walba apply gareeyo marka balacala inay help kind sameeyaan oo iyagu kaar isku yar aruursadaan jaamacadaha ugu sareeya inta badan jaamacadaha ugu sareeya kuwada way yar aqbalaan kuwa kamid ah kuwa kale marka adiga maxaan dhahaa waxaas oo kale marka jaamacadan waxaan ka wadaa software kan website kan global academy hadii kale US exam international student examination kan oo kale wax weyn uu ku soo bandhigi karaa wuxuu ka caawinayaa 40 jaamacadood oo maxaan dhahay 40 jaamacadood oo kala gedisan inaad hal meel ka buuxiso waa halka requirements ka registration for the US exam student requirements waxa oo dhan isagoo ku kala bixinaya phase 1 iyo phase 2 ku kala dhaarey ayaad maxaan dhahay halkan ku arkaysaa requirements ko dhan dhammaan halkan baad ku aragtaa yani page intiisa oo dhan waa requirements marka wax weeyaan adiga kuwan aad akhrin insha Allah waxaan rajaynayaa inaad kamid tahay kuwa maxaan dhahay waxyaalaha lagu diiday waxa lagu yeelanayo inaad dhammaan insha Allah aad ku arkayso rajaynaya waxaa kaloo jirta adiga marka halkan wuxuu ku leeyahay apply garee marka apply gareega markaad ku dhufato page kan ayaa ku soo baxaya and the page kan is the page oo maxaan dhahay page kan baa ku soo baxaya waxa weeyaan marka page kan waa page ka maxaan dhahay aad ka apply gareynayso marka so page ka aad ka apply gareynayso waxa weeyaan adiga waxaad sameynaysaa inaad apply gareyso marka insha Allah marban apply gareynayna maca last payment ga aynu gaarno haduu muhiim noqdo weeyaan haduu muhiim noqdo insha Allah si halkan waxa ku qoran apply to 40 universities in Turkey with one application يعني waxaad apply gareysaa 43 jaamacadood oo Turkiga ah laakiin hal application ka apply gareey marka halka waxaad garanaysaa jaamacad walba inuu maxaan dhahay inaysan jirin sida caadi ah jaamacadaha hal meel laga wada apply gareeyo marka US exam loo yimaado jaamacad walba sideeda ayaad apply gareynaysaa marka information kan mid ka wanaagsan oo la hubo ayaa ku sheegaya waa ka isku hadlayn karto waxa weeyaan isku day fadlan inaad jaamacadda aad rabto inaad apply gareyso magaceeda aad ku qorto internetka inta badan jaamacadaha qaarkood waa kuwan tusaale ahaan waxaad rabtaa ISU University waxaad rabtaa Istanbul University halkan yani Hacettepe University and some other universities oo halkan ku qoran iyo dhammaan jaamacadaha kale aad research samee ka bacdi waxaad sameysaa aad isku day inaad jaamacadda gasho aad aboutkeeda ama contactkeeda gasho emailkooda number bay leeyihiin email buu leeyahay halka aad kala xiriirto ayaga aad marka weydiiso aad ogaato waqtiga imtixaanka galiyaan sida US examka waqtiga la geliyo ka bacdina aad weydiiso sida uu dhibteere loo apply gareyn karo waxaan u maleynayaa xataa inay ka caawin doonaan registrationka inay isla emailka oo aad documentiga ugu dirto account-kana ay ku soo diraan lacagta halka ay tigirka kaaga soo diraan and somehow inay basaa kugu dhameystiraan hadii kalena isla jaamacadda markaad gasho qaybta US examka apply gareyso waxa ku soo bixi kara link and then that's how you apply marka insha Allah haduu muhiim noqdo inuu gelin adiga commentiga ayaad ku sheegay haduu muhiim noqdo insha Allah waan soo bandhigaynaa waan guda galeynaa waxa weeyaan application kan marka 43 university apply gareey ayuu leeyahay marka aad waxaad ogaanaysaa jaamacadaha Turkiga 43 university ma waa 108 university 43 university bas ayaa laga yaabaa in hal meel maxaan dhahay ku apply gareey ay ku dhahan way badan yihiin jaamacadaha Turkiga aad u badan yihiin 140 kaas xalayaan private state ka kooban state bas ma ka anyway adiga marka waxaad isku day insha Allah inaad qaabkaas aad u apply gareyso and hadii aad sida jaamacadaha u sarsareeyo oo kale Ankara University maybe Istanbul University some of them maybe in kuwa kale ka yar yar sida gobolada oo kale inay aqbalaan waa laga yaabaa marka adi insha Allah information ka kan insha Allah ku dheeraan mayno maxaan dhahay isaga intaas ugu muhiimsan marka insha Allah intaad ku ogaan leeyahay waa intan hadii aad jeclaan lahayd inaan details si fiican u sii galno sida inaan jaamacad apply gareyno waynu apply gareyno hal imtixaan inuu apply gareyno hadii weeyaan uu muhiim noqdo insha Allah marka haduu muhiim noqdo comment iyo fadlan wala wadaag insha Allah ha ilowin marka inaad kanaalka subscribe gareyso si aad video kala aragto insha Allah